daawadayaal haddii afartan dhexe la furo albaabadan sida naloo sheegay ilaa 5 albaab waaye waxay geysan karaan aad xawli macnaha biyaha ayaa xawli u soconaya si xadaaf sidii anaka mooska caadi u nacna waa kale moos biseel xataa inta iska yaala anaka soo cunayna calooshaana xanuuto waa kan yaa taak biseel waay cunugiisa ka daalisa cuna caloosh waxa badana hada nusiyaal laha yaarkan hada shaare waa laha malaamadu waa maqan agoonka maqan shaare waa maqan wax walba maqan kuluna maqan guru magaciisana waa kan moos bukeeni ayaa laha usoo ceelin wax cuna kartaa usoo biseel cuna kartaa waa jarjaranaya dhaxda kala gogoonaya waa kan usoo caada u jarjartay saaxiibayaal waxaanu safar ku tagi doonaa degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe waxaanu ku safraynaa wadadan quruxda badan oo labada haad ee laamiga cusub ah masaafadan 36 kiiloomitir oo isku xidha magaalada Muqdisho ee caasimadda ah iyo magaalada wax soo saarka beeraha caanka ku ah iyo biyo xireenka ugu ballaaran Soomaaliya oo aanu warbixin qurux badan ka soo sameyn doono ayaanu 36 kiiloomitir ku safri doonaa halkan soo dhawaada channelka Ifiye waa anigoo Anas Aswada maanta waxaanu warbixin qurux badan oo ku saabsan biyo xireenka ama mashruuca horumarinta beeraha ee degmada Balcad aan ka soo tabinaynaa isla degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe oo hoos tagta magaalada Jowhar qiyaastii 36 kiiloomitir ay dhinaca waqooyi kaga beegan tahay magaalada caasimadda ee Muqdisho halkan gadaasheeda waxa ku yaala mashruuca ugu ballaaran ama mashruuca ballaaran ee biyo xireenka Soomaaliya kaas oo la dhisay 22 Oktoobar 1980 ayadoo ay iska kaashanayaan dawladda waqooyiga Kuuriya iyo dawladda Soomaaliya ee xilliga dhisnayd kuwan waa mid kamid ah albaabada oo xireenkan Balcad uu leeyahay markii loo baahdo in la furo qaabka loo furo inta qof ay furaysa iyo sida loo furo hadii soo dhow waa inta ka shaqeyso marka waa la isla wada yeeraa gacanta hal mar saamul isla wada qabanaya markaas kan waa ka sii tagaysaa kana loo sii gudbaa tirada inta ka waday ilaa inta la keena waa kasii soconaynaa kadibna kana uu sii tagay tan filter amnita koo labo saddex bas qabsana calaamada taakeenay sax dadka seekaayno ma saaray marka kuwan ayaga waa laga boodaa lama furme waxa sababa waxa looma baahdo hada amnita geesanaya fatahad okay hadii la furo hadda kan koo labo saddex afartan waa laga boodaa lama furo hadii la furo biyaha xawli u soconayaan xawli wax waaweyn amnita jiidaan beerahan dhibaatayna halis markaas daawadayaal haddii afartan dhexe la furo albaabadan sida naloo sheegay ilaa 5 albaab waaye waxay geysan karaan aad xawli macnaha biyaha ayaa xawli u soconaya si xadaaf sidii loogu talagalay si ka badan tan laga bilaabay wax dhiba ma keenaan macnaha biyaha marka waa afar channel oo xagana afar albaab oo xagana iyo afar albaab oo xaga sideed albaab la furaa sida caadiga dhexda waxa ku jirta 5 albaab